السلام عليكم كسو دواada channelkayga please hadaa nagu cusub tahay subscribe gambaleelka on ka dhig saa u noqotid daawadaha ugu horeeya ee daawada mahadsanidin xanuunka kama nixin waxaan ka naxay oo kaliya duruufta iyo mucaanaadka qof aan shaqaysan oonan lahayn garab dhibaatadeeda waa dhibaato gaalad ma ihi qof muslimaan ah alxamdulilah waan ogahay inuu ilaahay ummadda isku safro laakiin waxay ahayd duruufta aan waajihaya kaliya ayaan aad uga naxay daa'imanna waxa aan ka naxaa alxawja inaad baahida way kulushahay waa Leyla Bashiir Jeenyo in ka badan 4 sano ayaa maalin dhaaf kaliyaha looga dhaqaa waxa ay imika dareemaysaa in uu waqtigu ka daba yimid hadda waxaan dareensanahay inuu ay dunida iga daba timid qof 4 sano laga dhaqaayo waad garan kartaa 4 sano oo maalin dhaaf aad isbitaal u socotid 6 sano waa hadda aniga diyaalis ah 2 sano waan diidanay in la iga dhaqaba dunyadu waa imtixaan Leyla waa qof aad u niyad wanaagsan balse maareynta caafimaadkeeda ayaa ka oohiyay wax ka kulul ma lahan inaad u baahatid caafimaadkaaga sidee aan u tagaa wallaahi subax markaan kaco oon tukado aan alxamdulilah dhaho waan u kallahaya isbitaalkan dhahaa gurigeeda dadna waxay u kallahayaan risqi iyo magaciis dadna caafimaadkooda u kallahayaan keef aan maalinteeda ku noolaada alxamdulilah waa dhib weyn bay igu ahayd laakiin alxamdulilah niyadana ma gashan maalin niyadda ma gashan inaan aan dhibbana ahay ma ahan qof shaqaysan kara noloshuna waa ay ku adag tahay oo labada kali oo aanan shaqaynaynin waxa uu sii dheer xanuun kale caafimaadku helaysa aan u shaqaysan karaa haddaan maanta is iraahdo shaqaysan karo meel kastood ka shaqaysan kartid ba caafimaadkaaga ee hortaaga saadad wax ma qabsan kartid marna dadka lama sinid ani waliba hadda kilida bas maahan laba xidid ayaa qalbiga xiran ayaga naftigooda waxay rabaa in la furo qalbi waxaan qaataa kaniin aan u qaataa iyadana qalbiga Leyla dhakhtarkeeda ayaa ku wargeliyay inay si dhaqso ah u hesho kille maadaama xaaladeeda aysan wanaagsanayn dhakhtarkeedu wuxuu leeyahay killida waa inaad kille si degdeg ah Leyla ku heshaa si degdeg ah waa inaad hadda kille ku heshaa killida waxa weeyaan qatar yani maraaxil leedahay dhaqista naftigeeda maraaxil leh oo qofka qaadan karayo dhaqista maraaxilkaas hadduu dhaafo jirka ayaa sun uu isbedelayaa intuu jirkaaga isbedelin kili waa in lagu helaa wargabadha Soomaaliyeed walaashina badbaadino war wixii aan tari karno aan tarno taleefankeeda halkaas ku qoran yahay Sacuudiga joogtaa ummadda Soomaaliyeed kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa Mareykan jooga iyo kuwa Makarasa qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha ku nool inta Soomaaliyeed hal loo kaco wallaahi billaahi taala iimaanka iyo aqoonta gabadha ku jirta haddaad dhigaysatid ama aad wacdid waxa weeye Ilaahay ayaa ku keenaya waa qof karti iyo dadnimo iyo adkaysi u dhaatay waxay aaminsan tahay qadarka Ilaahay war kilibka shargareeya oo gaarsiiya ummadda oo dhan gaarsiiya dawladda hadday ay Sacuudiga ay la hadlaan xataa wax waa la iiga qaban karaa Leyla oo hadda ku sugan Sacuudi Carabiya waxaan kula kulmay Muqdisho ka hor inta aysan ku laabanin Sacuudiga oo daruufo nololeed oo aad u adag awgi ugu noqotay $35 qof aan shaqaysan intuu ka keenaya maalin dhaaf ma helayo waa igu dhib hadda wallaahi billaahi haddaan maanta haysto dhaqistaas oo digfeer ama aan awood u leeyahay wallaahi Sacuudiga kuma noqdeen laanno maanta waxaan ugu noqdo xataa ma hayo dhaqis baan haystaa alxamdulilah ninkaas ay laxda ay waqti ay istaagi karaa laanno Sacuudiga jamciya khayriyaadkii oo dhan baa la istaajiyay Leyla Bashiir Jeenyo ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka ayay si naxariis leh ugu codsatay inay garab ku siiyaan sidii ay u heli lahayd caafimaad wanaagsan dawladda oo dhan ugu horeeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka
dowladoo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay codkayga maqlaan. Ani maanta dhibaato ay haysataa waan ogahay dad badan oo sidaydoo kale ay jiraan, laakiin aniga alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan hubaa inay codkayga hadday wada maqlaan inay wax ii qaban karaan. intiina awooda inay caawiyaan Layla ama doonaya inay la xiriiraan waxaad ka heli kartaan telefoon nambarada ay afkeeda ka sheegayso. lambarkayga Sacuudiga waxa weeyaan eber 966 5 5 7 eber 5 8 raqamkayga labaad waxa weeyaan eber 966 5 eber 3 2 1 9 Layla Bashiir Jenyo waxaan u rajaynaynaa caafimaad wanaagsan iyo in ummadda Soomaaliyeed ay garab istaagaan. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable.